laascaanood iyo ceeri gaabo burco buu hoodle abaar weyn abaartuna marna waxay maraysaa dunyada marna dadkay maraysaa inta ayna mustaqbal ka hadlin waxa loo baahay maanta in wax laga qabto arrinta taagan oo abaarta ah oo waliba laga yeesho tara qaran laalo xoolihii waa fadhiisto xoolaha waxa ugu adkaysa badan geela guryaha wax lagu siinaya oo wali calaf loogu qaadaya dadku waxay biisan jireen xoolahan baahay xoolihiina abaar baa heshay xanuuna waa weheliya marka abaar timaado ee xoolaha abaar ku dhufato waxa imaanaya xooluhu ay nuglaadaan waa xanuunkaasi dadkii adduunyada labada uu saameynaya waxaan ka hadlaynaa adduunyadii way fadhidaa abaar baahsan way jirtaa ee sida dadka ayna u raacan in laga taliyo oo xoogaa loo noqdo arrintaas oo waliba tala qaran laga yeesho oo waliba golahani uu ka hawlgalo oo arrinta xoogaa noqosho xukuumaddu wax ka qabatay laakiin wax ku filan ma gacanta Ilaahay baa lagu dhirgaa awal gacanta Ilaahay baan dalbanaynaa in Ilaahay raxmadna siiyo khayr qabta oo ummadda wada gaadha islaamka abaartaas naga soo jeebisay Ilaahay baan baryaynaa xukuumadda iyo wasaaradda ciqaabta waxaan ugu baaqaynaa roob doon in loo dareero oo xukuumaddu amarto in roob doon dalka laga akhriyo laanu xoolihii waa fadhiyaan dadkina waa raacayaan xanuun iyo baad la'aan iyo biyo la'aan baa dhacday waxaan soo jeedin lahaa si degdeg ah oo shirkadooyinka u soo jeedinaya golahanba in arrinta bal xoogaa loo soo noqdo waxa xukuumadda bixisay bal waxaanu ka qaban karnaa timirteena sidii ay u kala jiricsayn saynu ugu kala horeysiin lahayn in arrinta laga hawlgalo soo jeedin lahaa waxaan ka baxayaa Ilaahay aan barino arrintaasna gurmad degdeg ah gudoomiye shugud aan ka qaadnay insha Allah taala awal inako aan ka hawlgalno xoogaa la soo noqono aan xukuumadda iyo wixii aan la kaashan karno dawladaha caalamiga la sheegaba Ilaahay baa caalamiye iyo kuwa deeqda bixiye Ilaahay baa deeq bixiye bal aan arrinta ka hawlgalno. Salaamu calaykum.